kormeer ujeedkiisu ahaa isla xisaabtan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish waxa uu ku tagay dhowr meel oo kamid ah xarumaha dowladda hoose iyo wadooyinka Muqdisho. Isgooska Fagax oo kamid ah isgoosyada ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxaa biyo dhigay roobkii da'ay iyadoo uu hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. hase ahaatee waxa ay dowladda hoose xamar ka wadaa howlo lagu nadiifinayo wadadaasi si loo soo celiyo isku socodkii gaadiidkii dadweynaha isla markaana ay u yaraato mashquulka ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho. xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir ayuu sidoo kale duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish booqday waxa uu warbixin ku saabsan dhismaha xaruntani iyo howlaha lagu qabto ka dhageystay hogaanka ururka dhalinyarada gobolka Banaadir kuwaasi oo sheegay in marxalado kala duwan ay xaruntani soo martay. xarunta dadegista dowladda hoose xamar ayuu kormeerkiisa isla xisaabtanka ku soo gunaanaday gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uuna kula dardaarmay taliska ciidanka ilaalinta dowladda hoose xamar inaan la aqbali doonin ahbaacsanaan ku yimaada howlaha bulshada lagu qidmeynayo iyo bilicda caasimadda. waxa uu sidoo kale kormeeray waaxda dadegista oo uu kula kulmay agaasimaha waaxdaasi mudane Sharmaaka Abukar iyo shacabkii loo qidmeynayay isagoo ka xog wareystay howlaha kala duwan oo ay bulshada u hayaan. waxaana uu duqa magaalada Muqdisho ku amaanay hogaanka waaxda dadegista dowladda hoose xamar sida ay shacabka ugu adeegayaan. markii uu kormeerkaasi soo ilaaday ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish la hadlay warbaahinta. maantay oo Oktoobar ay tahay 27 maalin axad ah waxaan ku soo baxnay buuqyo iyo oga banaanbaxyo baabuurta yararka mini basaska ama baabuurta basaska yararka ayaa xogaa banaanbaxay wax saas sameynaya sida la sheegay. arinta uu kuurgalkeeda ayaan xafiiska uga soo baxay. runtii arrimihii markaan dhageysanay waxaan ka saarnay guddigaas iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wada fadhiya. waxaan rajaynayaa marka in si isfaham ay ku dhamaan doonto. sidoo kale wariyaal oo booliisku ay si isugu dhaceen oo la soo xirxiray ayagana waa soo daynaa ayagana wada hadal noo socda. waxaan rajaynayaa si isfaham inay ku dhamaan doonto insha Allah taala. waxaan inta dheer kormeer aan soo kormeernay magaalada qaybo badan oo kamid ah oo jidka wadnaha iyo jidka Sodonka isla markaas kormeerkeena waxa kamid ahaa oo aan soo kormeernay meesha aan biyuhu fariistaan oo la yiraahdo Fagax oo aan rabno inaan ayadana si degdeg ah xal uga gaarno. waxa sidoo kale aan booqanay qaybta gobolka Banaadir qaybtiisa oo dad dhageysta iyo dowladda hoose iyo xarunta dhalinyarada halkaas oo howlo muhiim u haya maamulka gobolka Banaadir. waxa kale oo warbixin ka dhageysanay madaxdii halkaas joogtay. sida darteed dhammaan kormeerkeeni hadda ayuu noo marayaa si gabagaba ah guul ayuu noogu soo dhamaaday. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.